jaazintii maalinkeedii yowma maalin oo wimaha hum kharaasuunta yuftanuuna la cadaabaayo cala annaari fi nnaari naarta dhexdeeda lagu cadaabaayo duuquu yuqaala lahum waxaa loo dhahaa kharaasuuntii duuquu idinka fitnatakum cadaabkiina dhedhmiya haadaa tacdiibkan alladii kii waayo kuntum idinkaad ahaateen tastacjiluuna inaad dedejin dalbayseen bihi ladiiga qabidiisa. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala qutila kharaasuuna kuwa beentuu saaxiibka ahaayeen waa la lacnaday oo waa la halligay. kuwa dhihi jiray beenta sheegi jiray oo nebi maxamed waa saaxir waa shaacir dhihi jiray kuwaas ilaahay wuxuu yidhi waa la lacnaday waa la halligay. ulajeedada ay ka lahaayeenna waxay ahayd beentay u sheegaayeen inay dadka ka leexiyaan oo ay ka weeciyaan islaamka. aladiina kharaasuuntaasoo hum ladiinka saahuuna kuwa hilmaameen ah oo waxay hilmaameen aakhiradii ay hilmaameen way ka mashquuleen baadilay uga mashquuleen fii kamratin jahli dhexdiisa xaal ay ahaadeen iyo moogaasho iyo arag la-aan dhexdooda xaal ay ahaadeen ay ku sugayiin. yasaluuna kharaasuunta waxay su-aalayaan ay weydiihayaan ayaana yowmiddiini majiiu yowmiddiini jaazintii maalinkeeda maashihiisa ayaana waqtiga u ahaaday saasay dhahayaan. nabi maxamed ay weydiinayaan qiyaamo goormay imaane ay leeyihin takdiiban wastihzaa'an birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam beenin oo rasuulka la beenayo jees oo rasuulka lagu jeejeesayo. qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi yowmahum cala annaari yuftanuuna yajiiu yowmiddiini jaazintii maalinkeedii yowma maalin oo imaha hum kharaasuuntii yuftanuuna la cadaaba cala annaari fi nnaari naarta dhexdeedana la cadaabayo. naarta markii lagu cadaabayo markaasuu imaanaa oo naarta ay galaan oo lagu cadaabo. yuqaala lahum waxaa loo dhahaa kharaasuuntii duuquu idinka fitnatakum cadaabkiina dhedhamiya haadaa kan oo tacdiibka ladii kii waayo kuntum idinkaad ahaateen tastacjiluuna inaad dedejin dalbaysen bihi ladiiga qabadiis markaa adduunya joogteen adikoo nabi maxamed beenaayo dhahaysana cadaabka aawe. ina almuttaqiina ilaahay wuxuu yidhi kuwa ilaahay ka baqay fii jannaatin jannayaalo dhexdeeday ahaadeen iyo wacuyuunan ilayaalo aakhidiina xaalay kuu qaadaan maakii aataahum rabbuhum rabbigooda uu siiyey. maxaa yeelay innahum muttaqiinta kaanuu muttaqiinti muxsiniina kuwa ixsaan falaayo wanaajinaayo ay ahaadeen qabla daalika qabla duquulihim aljannata dheh qabla duquulihim gelidooda ka horna ay ahaadeen aljannata jannada ay galaan. kaanuu muttaqiintii yahjacuuna ubood yahjacuuna muttaqiintii qaliilan zamanan zaman inay hurdaayeen ay ahaadeen zamankoo qaliilan yar zamankoo min aleyl habeenka ka mida maa waa siro ama maa aada iyo aada u yar waa la dhihi karaa aga sheekha sirow ka dhigay. wabilasxaari hum yastakfiruuna wahum muttaqiinta yastakfiruuna way dembidhaaf dalbaayaan ilaahay ay ka dembidhaaf dalbaayaan bilasxaari fi lasxaari hiraabyaalkii dhexdooda ay ilaahay ugu dembidhaaf dalbaayaan. wa fii amwaalihim waxaqun xaq fii amwaalihim muttaqiinta maalyaalku dhexdooda ahaaday xaqoo lisaa'ili kii su-aalaya iyo walmaxruumi kii la hoojiyey lahaantooda u sugnaaday. ina almuttaqiina ilahay wuxuu kuwa ilaahay ka baqay fii jannaatin jannayaalo dhexdooda beera aziindooyin dhexdooda ay ahaadeen iyo cuyuunan ilayaalo iska qulqulaayo aakhidiina xaalihin kuwa qaadahayo maakii aataahum rabbuhum rabbigooda uu siiyey ayagoo raalli ku qanacsan wixii ilaahay uu siiyey naciim iyo karaamada ilaahay uu siiyey. maxaa yeelay innahum ayagu muttaqiinta kaanuu muttaqiintii waxay ahaadeen muxsiniina kuwa wanaajinayo
iimaankooda daacadooda wanaajihayo rabbigooda wanaajinayo qabla daalika qabla duquulihim gelidoodii ka horna ay ahaadeen aljannata jannada ay galaan ay muxsiniin ahaayeen oo adduunyo dhexdeeda ixsaanu ilaahay ku sifeeyey kaanuu ilaahay markaas wuxuu yidhi muttaqiintii yahjacuuna muttaqiintii qaliilan zamanan zaman inay hurdaayeen ay ahaadeen zamankoo qaliilan ee yar zamankoo min aleyl habeenka ka mid a maa waa silo waa zaa-ido maa aada iyo aada u yar habeenkii wax yar ay ku hurdaayeen ilaahay ku tilmaamay wax badan in badan habeenkii way dukanayeen in yar habeenka ka midana way seexinayeen waaya habeenkii salaatuleyl ay dukanayeen min awalihaa waa dukaayeen awsadka waa dukaayaan waa aakhirkana waa dukaayeen kaanuu laa yanaamuuna inaysan hurdayn ay ahaayeen ilaa ay ka dukadaan cishaha ay ka dukadaan iyagoon cishaha dukan ma hurda jirin waa ka saasa ilahay bilasxaari hum yastakfiruuna wahum ayaga muttaqiinta yastakfiruuna way damba dhaaf dalbaayeen bilasxaari fi lasxaari hiraabyaalka dhexdooda kad ilaahay damba dhaaf dalbaayeen habeenkii waxay ku dhibtoonayeen qiyaamuleylka wax yaray habeenkii hurdaayeen habeenkii way nooleyahaayeen salaad haddii la gaaro hiraaboodkeena 10 sacna waxay la imaan jireen istikfaar waxaad u moodaa ayagoo ka baqaayo ilaahay subxaanahu watacaala dunuubtoodii taksiir ay sameyneen gaboodsalkii waxay isku arkayeen caawo dhan salaatuleylka dukanayeen cujbi ma gelayninoo meeshii laga raba inaysan gaarin wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili waalmaxruum wa xaqun xaqa fii amwaalihim muttaqiinta xooluhu dhexdooda ahaaday xaqu lisaa'ili kii su-aali walmaxruum kii loo jelaantooda oo ahaaday xaqaas xoolo ilaahay ku arsuqo ilaahay siiyana waxaa nasiib kula oo macluuma oo ay sii hayaan ninka saa'ilka oo tuugsanayo muxtaajka dhibaatoon iyo ninka maxruumka oo cafiifano dhowrsanoo waxba aan weydiinayn asoo dhibaataysan dhibaato daran ay hayso wax dadka weydiin maayo labada waa sii hayaan wa fil ardi aayaatun lilmuuqiniina wa aayaatun aayado fil ardi dhexdeeda ahaadeen lilmuuqiniina kuwa yaqiin lahaantooda u ahaadeen wa fii anfusikum idinka nafafyaalkii dhexdoodii aayaatun aayada ahaadeen ee afalaa tubsiruuna idinka haa aayadda mawaadan arkayn afalaa tubsiruuna idinka haa aayadda mawaadan arkayn wafi samaai risqikum wafi samaai sama dhexdeena risqikum wa asbaabu risqikum idinka risqiina sababyaalkiisa fi samaa sama dhexdeeda ahaadeen iyo maakii ayaa ahaaday tuucaduna idinku maagnila yabuuhay oo rabbi samaai samadii iyo ardada rabbigoodan ku dhaartee inahu madkuurka la xaqun mid sugan waay mithla maa anakum tandiquuna mithla nutqikum idinka dhawaaqidiina masalkeena xaal uu yahay madkuurkaas wa fi lardi aayaatun ilaa yidhi wa aayaatun aayada fi arlada dhexdeeda ahaadeen lilmuuqiniina kuwa yaqiina la-aantooda u ahaadeen wa fii anfusikum adinka nafafyaalkiin dhexdoodana aayaatun aayada ahaadeen ee afalaa tubsiruuna idinka haa aayadda mawaadan arkayno arladan waxaa ku sugan leh dalaa-il oo caddeynayso oo tusinayso ilaah inuu keliya ilaah inuu awood leeyaha waa dadka muuqiniinta oo ilaah yaqiinsano cadamadiisa anfusiinana waxaa lihi waxaa ku sugan aayaad oo cibro qaadasho laga bilaabo uma siina bilaawgeedii ilaa meeshay ku dhammaato aayaad ayaa ku sugan naftaada waa aayad alla oo ma arkaysin miya aayaaddaas qudrada ilaahay subxaanahu watacaala awoodda ilaahay oo markaa aada diliishateen wujuudkiina iyo khalqigiina iyo suuradihiina iyo muuqaaladiina kala duwan alsinadiina kala duwan carabkiina iyo luqadiina midabadiina kala duwan dabiicada kala duwan maqalkii iyo caqligii basarkii intaasoo marka oo aada u diliishataan ilaahay waxdaaniyadiisa iyo cadamadiisa
وفي السماء رزقكم وأسباب رزقكم إذا رزقين عنيسين وصبيال كيس في السماء سمر عيدا هذا وما كنا هذا توعدون ذيك اللي يبوها ورب السماء سمد ربي جدا قدارته والأرض على ربي جدا قدارته إنه مذكور كان لحق ومسوا مثل ما أنكم تنطقون مثل نطقكم والاسم الدريع ماذا وسلواي أنكم تنطقون الجملة داس وأن اسم كيد واي والمصدري بوصف مضاف إليه يلا والمصدري دواقدنا مثل كذا حالوية وكلا يقول السماء وعاكسون أسباب رزقكم وعاكسون وعيشكم نرشي إن رزقنا أسباب تي السماء وكسوه ومدرك أي لا المدر رزقي وحي العون لا السماء مجرانه وحي أصاب على هاي رزق أصل وهير لا يوراب كوا هاي نباتك بن آدم نرشي ودرنا وحكو حكو تاجنتها راب كاس يوحي إن يبوها وآخرة النعيم عقابه وكسوه على السماء مركز إلهي دارته أو رب السماء والأرض إنه لحق وحين لا يبوها ونلا شيء ورزقيا بعثيا حسابكيا جزيها دمان لحق وحق وشيء كائن وجلسنا الله محالة ودبقين لمديا دبقين هذا الكين لمديا سادان وشكلين نطقين دبقين سدا أقبل رزقين كشك ميسين رزق وحلمده مثل النطق لا يفارق الإنسان في حال من الأحوال نطق مكتب بنادك فاروق ماي هذا الكون حال من الأحوال وهذا بناد رزقنا أساس وكلا سنة فاروق ماي حسن البصري وعيري ولغني وحيسوق أن رسول الله قال إنه قاتل الله أقواما أقسم اللهم ربهم ثم لم يصدقوا نبي يسوق رسول حسن البصري رسولك وعيري قاتل الله أقواما قلوين الله لعنة الله كدل أقسم اللهم ربي جودا ودارت إلهي ودارت ثم لم يصدقوا ومروا منه واي nin Carabiya waxay aayadan maqlay oo nin qaariya aayadahan aqrihayo maqlay wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'aduna wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tandiqun wa daqaqa sanad walush wa qili ya subhanallah man aghlaba al jabbar hatta halafa allah rasul subhanallah ya ilahi ta'ala أو كعريسي إلى إله أو كدارت ويا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديس خبر كيدي مرتدى خبر كيدي كأذية مكو إيمانه مكو يمد هل أتاك مكو يمد هو مكو يمد حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديس خبر كيد مكويب ضيف كاس المكرمين الكرامي إذا وقتنا وخبره دخلوا أي ضيفك عليه إبراهيم كركي يسوقران فقالوا أي راد ضيفك سلاما نسلم وان سلامين عليكم كركي سلام قال إبراهيم أويلي سلام عليكم صادر سلام عليكم كركي الله يلا قوم منكرون هؤلاء كوان قوم واي قوم كاس منكرون لا ينكر فراغ نبي إبراهيم إلى أهل إيركيس انتكاء أو أي شيء فجاء نبي إبراهيم بعجل دبي وليم عجل كاس سمين حوصا فغرب نبي إبراهيم هو عجل إليه بذلك انتكاء ودبي قال إبراهيم حيري ألا تأكلون ما عنتين ويلي هو عجل قام فأوجس نبي إبراهيم خيفة عبسي وفي نفتي سلحيدة قريي
minhum dadka xaggooda uga qariyo. qaaluu markaas waxay laa taqafa cabsan wabasharuu dayfkii hu ibraahim biqulaamin wiilay ugu bishaareeyeen qulaamkaasoo caliimin cilmi badan. ilaahay wuxuu leeyahay ma kuu yimid nabiyullaahi ibraahim martidiisa qabarkeedii, martidaas sheekadeedii oo la karaameeyey. martidaas waa usluub waa wanaagsan, tashwiiq ah ku sugan, hiyowgelin iyo jeclaysiin. qisadaa in la dhegeysto aa lagu jeclaysay. hal ataaka xadiidu dayfi ibraahima, maku soo gaaray maqalkaaga ma soo gaaray dayuuftii nabi ibraahim oo fadliga lahaay khabarkoodii maku soo gaaray. waa malaa'igtii hum almalaa'ikatu alabraar waana u yimaadeen inay u bishaareen id waqti u qabra daqaluu caleyhi ay soo galeen, nabi ibraahim ay soo galeen. faqaaluu waxay yidhahdeen salaaman nusallimu annaga waa salaamin caleyh korkaada salaaman salaamin. qaala ibraahimna uu yidhi salaamun nabadi calaykum kirkin allah yeelo. oo asagana markay salaameen taxiyatulislaam ay ku salaameen, taxiyadii waa ka radiyey. qowmun haa-ulaa'i kuwan qowmun waayo, qoomka munkaruun la inkiray naftiisu qalbigu ka dheh warkan. qowmun munkaruun markuu dhahayo ma maqashiinin, wuxuu ihi dadkan waa qoom qurabaa. fama aladii qad maxaa keenay meeshaan uu dhahayo mushaafaha uma dhehen, hortooda kama dhehen, qalbigu ka dheh. maxaa yeele quluqiisii oo sarreeya, dabeecadiisi sarreysa uu ogolaa mayso in hadalkaas uu ku la jahro. qowmun munkaruun inuu la jahro yaa dabeecadda ilaahay siiyaa diideyso. maxaa yeele dabeecadda waxaa waaye wanaagsan martiga in la weheliyo oo laga farxiyo. laakiin qowmun munkaruun haddii yidhaahdo martida farxi mayso. faraaga ibraahim ilaa ahlihi ehelkiisa intikaa oo u iishay dhanka ehelka ayuu aaday. zawjadiisa xaggeeda u aaday, asoo degdegaayo, asoo fii khufyatin si qarsoodiya u aaday, oo asoo martida ka dhuumanaayo. haddii marti wax loo keenaayo waa laga dhuuntaa, waa loo soo adeegaa. fa jaa ibraahim bicijlin uu la yimid dibi, cijligaas samiinan ee xoosan. fadhiisahe sheehan ila karihaaye marti lama dhaho, badalan ila kariya lama dhaho, waa la fariisiyaa, hooshaada la qabsadaa. sida nabiyullaahi ibraahim uu sameeyey. soo dhawaadahay macnaa waa sii taga, macnaa sarbeeb oo kinaayo oo martida qofkaas uusan rabin soo dhaweynteeda. fa jaa wuu la yimid nabi ibraahim bicijlin uu la yimid dibi, cijligoo samiinan ee xoosan oo duban. faqaraba ibraahim nabiyullaahi ibraahim hu cijligii ilayhim dayfka intikaa ayuu u dhaweeyey cuntadii. ma cunin markii u dhaweey ma cunin. qaala marka wuxuu yihi nabi ibraahim si oo bashaashnimo ku dheehan iyo taladuf naxariis, alaa taakuluun uu yidhi oo maa cuntiin wey. marka alaa taakuluuna ma cunaysiinohe min hada dacaam aladiid. fa awjasa waa qariyey nabi ibraahim minhum dayfka xaggiisa khiifatan cabsi oo qariyey, fii nafsi nafti dhexdeeda ku qariyey. waa cabsaday, qoof ayuu naftiisa ku qariyay. markuu arkay inay ka jeeseen dacaam oo ay u sheegeen xaqiiqadoodii inay malaa'ig yihiin, bashar aysan ahayn, oo ay ugu bishaareeyeen gulaam oo caliim ah. zawjadiisana xaggeedan ay ugu bishaareeyeen saara, waxayna ahayd marka caqiima ahayd, weligeeda ma dhalin. markaasuu cabsiyuu dareemay. qaaluu marka waxay yidhahdeen laa taqaf, ha cabsan, ilaa marti badarkaaga cuni weyse waa ka shakinay moogta. qaaluu marka waxay yidhaahdeen laa taqaf, ha cabsan. dayfkii dhahay wabasharuu marka dayfkii ku ibraahim biqulaamin ay ugu bishaareeyeen. qulaamka waa caliiman ee cilmi badan ay ugu bishaareeyeen.
نبي فأقبلت امرأته نبي إبراهيم الإسلام دي سوى قابش في سرة غير دحين حاليات فسكت امرأتي وجهها وجهي أي دربعض وقالت وحين تري عجوز عقيم أنا عجوز أنا هي عجوز تدقوا ذي عجوز هذا سو عقيم من رشاه قالوا مرك وحير هذا ضيفك كذلك قال ربك أي دهن قال ربك أذيك ربك أيري كذلك قولنا هذا الأويري هذا الكاسو مثل قولنا أنك مثل هذا الكينا مثل كيسي أو هذا أنك أنشيجينا هذا اللمدة إلهي يري ربك يري إنه ربك هو رب الحكيم واي اللي فلسوبنا العليم اللي علم بدن واي فأقبلت امرأته إبراهيم إسلام دي سوى قابشي أي قرية بجوكت أيضا مرديرين فأقبلت امرأته إبراهيم حاسكي سيوى وسوق بشيء وما كان مرديرين مكان كم إيمان إقبالك وحيد هذا مكان لقيمة مكان كاللوطو كانت في البيت في سرة غير لحظين حاليات ومعناه وحيد معناه وحيد ذاك الشيء إنه والوليس إسلامك عادو ذا تاس كميداو هدي أي مقلان شيء والولان واعف سواء فسكت مركة امرأتي وجهها وجهي يدر بعض فمركز أصابع دي إنتي كل مسي أي قون كده كدر بعض ساستري تعجبا أيضا الله ياويس وحين كمتها مداس من عادات النساء هدي أي أركان شيء أي انكرايان هدي أركان الله ياوان إساسي لهم وقالت وحين تري امرأتي عجوز أنا عجوز أنا عجوزت عجوز كاسو عقيم من ضلاوة من ضل عجوز ما ضل يسوي إسلام عجوزة ما ضل معايا صارنا لم ترد قبل ذلك هرب لقد ما ضل قالوا مركب وحير هذا ضيفك ومرتدي ملائكتي واي كذلك قال ربك ربي يري كذلك قولا أويري قول كاسو مثل قولنا أنك هذا الكلمة الكيسة هذا الكلام كون لهين وهذا الإله يري إله وحوك يري إنك ستلدين غلاما ويل أدل دونتان إلهي كيري سيد الله يري نوالك إنه ربي لنا الحكيم واي عليه حكيم أهاي حكمة صاحب كاوا عليه فلسوبان واي حكيم وشيء والمبوسك وقوة بوندقاي العليم واي عليه علم بدن markii nabi ibraahim xaalkooda uu ogaaday inay malaa'ig yihiin markuu wuxuu yiri qaal ibraahim wuxuu yiri wama khadbukum sha'nigeena muxuu yahay arintiina maxay ayuha al-mursaluna kuwa la soo diro wama khadbukum arintiina sha'nigeena muxuu yahay ayuha al-mursaluna kuwa la soo diro markii uu xasiray oo qalbigiisa degay inay malaa'igiin oo ogaado bashar aysan ahayn danta ay leeyihiin oo weydiiyo muhiimadooda waxay tahay oo loo soo diray markaasuu yiri fama khadbukum fama sha'nukum sha'nigiina weyn muxuu yahay la soo diray qaaluu waxay yiraahdeen ضيفك إننا أرسلنا إلى قوم كانوا la soo diray qowmkaas mujrimiin dambaabeen نرسل عنك عليهم قومك كوكو حجارة dhagaxaan inaan ku dirno حجارة من دي لو حقيقة كات حجارة مسومة لعلامة عند ربك لو علامة للمصرفين كو حد قول أنتم لو علامة قالوا وحنا ضيفك إنا أنك أرسلنا أنك إلى قوم كانوا لصادر قومكم مجرمين الدنباوين لنرسل أنك عليهم قوم كوكو حجارة dhagaxaan inaan ku dirno ahaan حجارة من دين لو حقنا كأهات waxaana la soo diray qoom
oo xun oo mujrimiina inaan haligno baabi'ina rabna dhagaxaan oo dhoobo laga sameeyey dhoobo la duul laga sameeyey samada xaggeeda laga keenay inaan ku haligno rabna وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود إلى هيري حجارة ودينا مصومة العلامة دي عند ربك أتي له علامة دي للمصرفين وكل واحد يقول أنت له علامة دي نجح كستو علامة ليو نينك اللي قدير لها ما عيسى كقران نجح حسنيك اللي قلت وقالها قنتال مع النبي ولا حق سكين كليجيس قفك كليو دلاو قفت دين عيسى بالك كوهاي قنتالك ديري مايو ما عيسى نكو قران المصرفين اللي على مدي دتكم حد قدبي وفاجر نمذا كو حد قدبي إلهي وحور الله على مدي الله وترجل علامة الله يلا وعلامة أما الله يلا علامة تسينيسو إنه صن كمده هن رجحان الدنيا أما ما جي قفك اللي هالليجا ما عيسى كو قران فأخرجنا إلى وحور واب حنا من دولكي كان منك فيها في القرى تولوين كده هذا من المؤمنين وكون رمينا فما وجدنا مهر فيها في القرى وقريات كده كمهر غير بيت غير أهل بيت بيت أهل كيس معهنا بيت أهل كيس معنا أهل بيتكم المسلمين وكون قاسمين كمذا وتركنا أنك فيها في القرآن آية على مدن أغتقن للذين كل أنتم أغتقن يخافون الذين العذاب عذابك كبقايا عذابك سؤالين يحنون بضن فأخرجنا إلى وحوري وعن صوصا من دولك كان منك فيها في القرى هذا وصارنا بيه ومن نقول رمينا نحن ذا نكبحن فما وجدنا مهير ولا يري بعد البحث والتفتيش مركي لير النبي جبار يحيي المؤمنين مقالة كسار ليرنا غير بيت غير أهل بيت أهل كيس غير كيس معانا أهل بيتكم المسلمين تكمل مركي لبيعي مؤمنين لحد ولا قصاري مهر لا يرى بعد البحث والتفتيش مركي لبحثيه ولا برباري هل أهل البيت بس الله يلو هل قري أو مسلم الله يلو غير النبي يردن أو مضل له صدري هل قوس أو مسلم كان نقضي وحيث السنة مدان فجارتا inay badnaayeen oo dadka fujaarta sidoo inay badiyeen dadka baariyaashan ay yar yihiin oo wanaagsan ahlu beedka siyay naqdeen mar nabiyullah luud alayhi salaam wa ahlu beyti bas nabi ibrahim nabiyullah luud iyo qoyskiis oo wali laga reebay xaaskiisa kaafiradeed ayada waa halaagsatay macal halikiin waaye qaryooyinkaas oo qaryadaas ku xareereysneed 600 oo magaalo ah 600 magaalo waa la qalbay guryahoodii dhagaxaan aa lagu roobay samada xaggeeda rasaas isla raacaysa gantaalo isla raacay ayaa samada xaggeeda ka soo soobtay markaas ilaahay baabaash kan ugu dambeeyay oo ka dhinto oo taragnaa markii ilaahay uu yiri annaga fiya fil quraa قريوينكاس آية علامة أغتقنا ولهؤلاء المهلكين للذين أغتقنا كوي لا أنتم يخافون الذين على عذابك بقايا عذابك سؤال الأليم محنون بضن قريوه ديقانا دول علامة أيان أغتقنا لا يوري وهلاقوا دي قريها أي دقنايين ماشي أغوص الرئيس ماشي أغوص سيسان كيان ولا دبق الدية وعبر مرك وفي موسى وتركنا في موسى آية وتركنا أصغر وتركنا أنك في موسى في قصة موسى نبي الله موسى قصة دي سلحيد آية أيضا وتركنا علامة إذا وقت وآية أرسلنا أنك موسى إلى فرعون أنت كان أدرنا بسلطان مرتبسا حالا مدهن بسلطان حجر كدهن سلطان كمبين عاد فتولى فرعون واجي سبروني مع رقني فرعون جنودي سيلغوا جيس وقال بحوني إلى فرعون صاحر هذا كان صاحر سحر رواي أو مستمجون مدوالا واي فأخذنا إلى وحر أنك وفرعون وجنوده فرعون عيدكيس أسكرتي سواقا فنبذنا أنك هم فرعون الجنوديس في اليوم بدأ حيثا كردنا
walxaal ayaan ku ridnay oo aan qabanno huwa fircoonna muliimun mid dagaal kasbadan uu yahay wa fii muusaa wataragnaa ilaahay wuxuu yidhi annaga oo soo qadiray wataragnaa annaga fii muusaa fii qisati muusaa nabiyullaahi muusaa qisadiisa dhexdeeda aayatan uga tagnay calaamad id waqtina oo aayada oo calaamaha arsalnaa annaga hu muuse nabiyullaahi muusa ilaa fircauna fircoon intii ka ah aan u dirnay fircawn adaaqiil aljabbaar bisuldaanin multabisan xaal u yahay nebi muuse bisuldaanin mid ku dhehan xujo qoydeeda ku dhehan suldaanka mubin cad bixujatin waadicatin wa daliilan baahirin daliil xoog leh soo wata mucjizaadka la wadaa suldaanka la sheega almucjizaatu alatii ayadahu allaahu biha waa mucjizooyinka ilaahay uu ku xoojiyey kalyadi walcasa gacantii iftiimays iyo ushii yaabka badneed taasaan la dirno ilaahay fatawalla fircoon waa jeestay birugni maca rugni fircoon junuudiisa dhe askartiisa in la qawojeystay iimaankii u diiday asigii kooxdiisa iyo atbaacdiisa waaye wa qaala wuxuuna yidhi fircoon nebi muuse wuxuu ka yidhi xaggiisa haadaa uu yidhi soo qadar saaxirun waay sixiroo waayo ninkan walidaalika wuxuu la yimid wax khawaariqulcaadaa wuxuu saas u dhowyaa waaye mucjizadii awgeed oo wuxuu leeyahy saaxir waa loo yaqaanaa dadka kufaarta aludaalka sheega mucjizada hadday arkaan ama karaamada sixir way dhahaan oo amase majnuunun mid waalan waayay dheheen maxaa yeele wuxuu sheegtay nebinimo iyo risaalo rasuulnimou sheegan waa waalaya saasuu yidhi dadkuu saas rabaa inuu ku indha ku jeediyo dadka rabaa inuu ku qanciyo arrintaas waa dacaayad wa xaqii markii la arkay xaqii waraba dadka inuu ka indhisaabo markaasuu dacaayad iyo barbagaando iyo aflagaaduu bilaabo inuu nebiga dacaayadeeyo fa akhadnaa annaga hu fircoon ilahi wuxuu yihi wajunuudahu fircoon askartiisa waa qabanay fanabadnaa annaga hum fircoon iyo junuudiisa filyama badda dhexdeedaan ku ridnay ilahi yihi asiga asxaabtiisa baddaasaan ku ridnay markay rasuulkeena beeniyeen walxaal ayaan ku ridnay huwa dheh fircoon muliiman u yahay mid dagaal kasbadoo wax lagula dagaalo la yimid oo kufri oo duqyaana ilaahnimana waa sheegtay wa fii caadin wa taragnaa annaga fii caadin fii ihlaaka caadin reer caad halaagidooda dhexdeeda aayatan aayadan uga tagnay idu waqtina waa aayadaa weyn arsalnaa annaga calayhim reer caad korkooda arriixa dabeeshii aan ku dirnay riixdaasoo alcaqiima kheyrka la-eed alcaqiima ee kheyrka la-eed maa tadaru riixdii min shayin shay an kama tegin shaygoo atad riixdii caleyhi shayga korkiisa ay ku timid ilaa haddii ay ka tagto jacalad riixdii huu sheegi ka ramiimi ku la burburiyey oo kale ay ka yeesha ku la burburiyey macnaa ku baaliyoobay aan rabaa ka ramiimi ku baaliyoobay oo kale ay ka yeeshay wa fii caadin wa taragnaadhe annaga ilaahi wuxuu leeyahay fii caadin fii ihlaaki caadin u soo qadar reer caad lahaligidoodii dhexdeeda aayatan aayad ayaan ugu tagnay calaamad id waqtina u calaamaa oo aaya a arsalnaa annaga calayhim reer caad korkooda arriixa dabeeshii aan ku dirnay riixdaasoo alcaqiima kheyrka la eedo kheyr wax kheyrlan iyo baraka aan lahayn dabeela mudamiro ah waa xalligeyso maa tadarow riixdii min shayin shay-an kama tegin shaygoo atad riixdii caleyh shayga ay ku timid ilaa hadday ka tagto jacalad riixdii huu sheegi ka ramiimi waa ku baaliyoobay oo kale ay ka yeeshay macnaha dabeeshii marka wax kama tegin waxay marto kama tegin ila waxay hadday marto
oo ay ka tagto waxay ka dhigaysaa ciid burburtay, waa shay baaliyooway. dabeeshan waxaa lagu shabahay islaan ama dhashaa oo aan weligeeda aan waraabin waxna dhalin. macnaa dabeeshan wax khayra kuma sugno, nafcina kuma sugno, barakana kuma sugno, oo aan halaag ahayn. wa fii thamuuda wataragnaa fii thamuuda fii ilaaki thamuuda, reer thamuud la haligidooda dhexdeeda aayatan aayad ayaan uga tagnay. id waqtigana waa aayad ah. qiila lahum reer thamuud ahaantooda loo yiri tamatacuu raaxaysa xataa ilaa xiinin zaman intii kaa raaxaysa. facatow reer thamuud can amri rabbihim, can imtitaali amri rabbihim, reer thamuud rabbigoodii amarkiisii la fartoomidiisa xaggeedii ay ka kibreen. fa akhadathum thamuud waxaa qabatay assaaciqatu biraqdi, walxaal hum ayaga saaciqadii ama qayladii qabatay, walxaal hum ayaga yanduruuna ay fiirinayaan. fama stadaacuu thamuud min qiyaaman ma yiwaadin, wamaa kaanuu thamuud ma ahaan muntasayna kuwa gargaarta. wa fii thamuud wataragnaa ilaah wuxuu yidhi annaga fii thamuuda fii ilaaki thamuuda, reer thamuud la haligidu dhexdeeda aayatanan uga tagnay halaagooda cibro iyo waana qaadasho. id waqti waa aayad ah ama id waqti la haligo qiila lahum thamuud lahaantooda loo yiri oo nebigooda u yiri oo saalix calayhi salaam markii hashii ay boqnigooyeen wuxuu yidhi tamatacuu raaxaysta, nebigaa dhahay xataa xiin zaman intii laga gaaro raaxaysta, iska noolaada guryihiin 3 beri noolaada, kabacdi cadaabaa idinku soo degaayo. facatow thamuud can amri rabbihim, can imtitaali amri rabbihim, rabbigoodii thamuud waay rabbigoodii amarkiisii la fartoomadiisii xaggeeda ay ka kibreen. in amarka ilaahay ay qaataan waa ka kibreen, daacada ilaahay ka kibreen. fa akhadathum thamuud waxaa qabatay assaaciqatu qayladii qabatay 3 beri ka bacd hashii markii ayna boqogooyeen jibriil ayaa ku qayliyey, waa dhinteen, wadnaha ayaa wada gooy dhammaantooda, qof walba meeshuu fadhiyo ku qalaleyd, xataa ma dhaqaaqin, qof walba meeshuu joogo oo ku qalalay. cadaabaa qabtay, saaciqa waa cadaab muhlig ah oo waxa ligaayo. walxaal oo ay qabatay hum ayagu yanduruuna ay eegayaan oo fiirihayaan oy arkayaan cadaabkii cayaanan u arkayaan. fama stadaacuu ma awoodin, ma yiwaadin min qiyaaman ma awoodin, ma istaagin markuu cadaabka ku habsaday, ma qumin, waa awoodi waayeen hataa inay hinqidaan ay awoodi waayeen. qof wal meeshaas oo ku qalalay. wamaa kaanuu meeshii uu fadhiyey, wamaa kaanuu ma ahayn muntasayna kuwa gargaarsada kuwa gargaarta macnaa oo ka reebto ama cadaabkaas iskaga hiiliya ma naqan. maxaa yeele awood maba lahaba ay iskaga difaacaan cadaabkaas. wa qawmi nuuxin wataragnaa annaga fii qawmi nuuxin fii ihlaaki qawmi nuuxin dheh, intaas waa loo soo qadara. wataragnaa annagu fii ihlaaki qawmi nuuxin, nabilahi nuux qoomkiisi la haligidoodii dhexdeeda aayatana uga tagna ilaahay min qabl haaulaa'i almuhlakiin, min qabli haaulaa'i almuhlakiin, kuwaan la haliga ka hor